dalka kan 1990kii wixii dhacay waxay la mid ahaayeen 60kii reer Yurub dawladnimada inoo keeneen wax khariban weeye ma rabno qabiilkayagii baan jamanay qabiilkii baan rabnaa markaan fasiro sida wax u dhaceen saasay qabiilkii baa la noqday 720 sano lagu jiraa waa lagu baabaay waa lagu gumoobay waa lagu qaxay waa badbaa loogu dhacay dadka adduunka maanta ugu leeyahay waqti dawladaha aanu ciidamada ka soo qaadan ama noo keenay kuwa aanu hadda ardada u diro waa kuwa aanu anagu biili jiray way kuwa anagu aan modelka u ahayn way shaqo waxa halka lagu saagootiyahay takhaatiir arday muxuu ahaa soo qalin jiray samse islaaqs bay ahayd oo Uganda iyo socda muxuu Kenya jaamacadda hablay u socdaan jaamacad xagga u socdaan halka anaga is dhignay haddana wixii baa socda hadday 1990kii ahayd qabiilkii baan jamanay qarannimadii ama dawladnimadu macna ma lahayn wax gaar noo keentay baa aan burburino hadda wali waxaynu wadnaa oo chamberkan golahan laga wadaa oo xukuumadda laga wadaa aynu kobcina qabiilka ilaa uu kobcana yaan qaran loo gudbin yaan doorasho la aadin aynu halka ku hayno madaxweynayaasha tirada badan hay noo kobceen qabiilku murqa waaweyn hayaasho calaamadu sharci ha noqdeen halkaas way jidka haysaan waxaad ku haysaan 2002 baa ahaa asaaska dawladdan 2000 bay ahayd carta markii aan Ismaaciil Umar Geelle aan ka hadlay maalintii Ismaaciil Umar Geelle la doortay baan warqad u qoray 1919 London ma joogo waxaan iri haddaad rabtid waa ku hambalyeynaya madaxweyne haddaad rabtid in dawladdaas hirgasho Djibouti walaalkii ka weynaa raadi ma sha Allah waa iga yaala artaan isugu nimid dhowr boqol aqoonyahan la isu keenay bishii Maaris 2000 waxa la yiri keena jidkii ay dawlad ku noqon lahaydeen waxa aan qoray 12 qof baan ka saaray oo la yiraahdo committee technique waan ku jiray anigu waxaan diidnay in lagu saleeyo afar iyo bar ama qabiil dawladnimada dawladda Djibouti waa noo timid waxay tiri waayahay maxaa la ku saleeyo benchmark maxaa marjaca oo muxuu ahaayeeto ilaa wax walba markii la bilaabayo meel laga bilaabaa la rabaa waxa khasab noqotay in qabiilka lagu keeno shardi baan markaa anagu galay waxaanu leeyahay maalinta xildhibaanka qabiilka lagu doorto waa inuu ka xiibsibtaa qabiilka oo u xiibsibtaa in dawladnimada Soomaaliya soo celiyo 16 sano 17 sano aan maraynaa halka waxaan ku fadhinaa 4.5 reerkaygii gobolkaygii intaanaan oo Soomaaliya wadan ka kooban xigmadda la isugu keenay maxay tahay waxay tahay inaan masawir yar u noqono masawirka weyn oo dadkoo dhan aan isu keeno Soomaali isu keeno ilaa anagu waa wada saaxiib baan cududnimo kala gelin waa cudud haday jirtay kala jabtay warmaayo shaqadaynu lahayn oo ahayd inaanu midayno ummadda Soomaaliyeed si doorasho iyo xisbiyo loo gaaro ilaa qaran aan xisbi iyo doorasho ku soo bixin qaran ma aha adduunka laga doonayo baa jirta waxaan ku shaqeynaya waa annaga iyo Lubnaan oo aan dimuqraasiya ka dhici karin ba Lubnaan haddaad Kristaan tahay madaxweyne noqonaysaa meel kale ma aadi kartid haddaad tahay Shiici ra'iisul baarlamaan baa noqonaysaa haddaad tahay Sunni ra'iisul wasaare noqonaysaa maalkaas rabnaa inaan ku hayno waxay deglaayaan waasaas maalkaas aynu ku haynaynaa haddaad reer hebel tahay madaxweyne haddaad reer hebel tahay prime minister baad haddaad reer hebel tahay ra'iisul baarlamaan baad maalkaas ku haynaynaa baash anigu waxaan u yahay xildhibaano saaxiibadaya oo leh macna male lama qaban karo doorasho markii 2020 la gaaro 2 sano kale aan ku darsanaynaa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxay tahay waxa weeye annaga iyo xukuumadda halkaan fadhida xilka saarina waxa weeye inaanu u guntano kulligeen masawirka yaroo aynu nahay waxa lagu keeni karaa dadka kalsoonidii ka dhuntay in lagu soo celiyo horta oo aanu tusno annagu oo dawladnimada dadku aaminaan markii dawladnimada la aamino waxa yaraanaya qabyaaladda yaraanaysa waayo haddii qofku ammaan u baahnaa dawladdii baa u fulinaysa
hadduu shaqo u baahnaa dawladda baa siinaysa hadduu mobility iyo socod u baahnaa hadda mushkiladda ugu weyn dalka haysta waxa weeye bal wadan hawadiisa ma ahane aan dhulka la mari karin oo baawur la raaci karin in hawal diyaarad loo raaco ma ahane qodhin iyo xidhadu oo haddii alla ku reeyahay bad la mari karin baddu waa xiran tahay oo hawadu waa xiran tahay waxaan leeyahay birigu waa xiran yahay hawada kaliya la maraya waana iska joognaayo yani business as usual buu yiraahdaa gaaladu tiraahdaa ingiriisku yiraahdaa yani caadi sidii dad caadi u nool baynuna waxaa la rabaa arrinta xisbiyada 2004 dawladda ku meel gaarka ahayd oo lagu dhisay Embagaasi sharcigeeda waxaa ku qoraa ama dastuurkeeda ama xeerkeeda in doorasho dhacdo 4 sano ka bacdi waxaa la yimid 2012 waxaa ku qoraa qaarkii in badan baa hadda xildhibaanadii hore oo naga horreeyay sagaalaada waxaa ku qoraa in doorasho dhacdo hadda waa ku qoran tahay sidii kuwa loo lugjiidayo aad moodaa in loo lugjiidayo waxba isagama jiraan shaqada guddiga laga rabo iyo perceived wax yani laga sii fikirayo duruuf hadda ku haysato aad ku jaangoynaysid bari inay sideeda ahaanayso inay Soomaaliya maqnaanayso ama gobolada waqooyi 2020 ku jaangoynaysa markii hadda ay tahay 2020 si saadaalinaysa inay sidaa tahay waxaad si saadaalinaysa in meel walba nabadgelyo xumo ka jirto oo aan la tagi karin macnaha sidaan baynu ahaanayna 4 sano ka bacdi baad saadaalinaysa oo maxaa u saadaalin weeyday 4 sano ka bacdi inaan isu furanayo mobility iyo dhaqdhaqaaq iyo gobolada isu furan iyo dhulka la mari karo baawur la qaadan karo maxaa u saadaalin weeyday in la heshiin karo oo dib u heshiisiin inta dhacdo integration wadada Soomaaliya ay samayso maxaa u saadaalin laadahay in xisbiyo loo kala la kala aado meesha 4 bar la aadi lahaa 4 sano xisbigaan hadda wadnaano xisbi ummadda la yiraahdo madax ka aha xamar baan ka asaasnay 10 xisbi baan hadda waxaan diyaar u nahay garsoor xisbi la yiraahdo inaan ku sameeyno isku darsano oo gobolka kala duwan ka yimid waa ogtahay maxaa waa ogyiin guddiga waa ogyiin hadda baan garow ka yimid garow waan kaga dhawaaqnay xataa xisbi waa la sameyn karaa doorasho la gali karaa duruufta hadda aan lagu jaangoyn karo war vision aan lahaano aragti aan lahaano oo iska dayno muxuu ahaa curyaannimada oo annaga xilkaasi masaaran waa xildhibaanada iyo dawladda halka gubada halka fadhida way hadii kale qabiil baynu warigan ahaanayna amaan daradu waa jiraysa shabaab waa jiraya ciidamada Uganda iyo ciidamada Ethiopia ciidamada Kenya waa joogayaan ma maqlaysa reer baynu kala goonaanayna masawirkaas madow ogaada marka dambana waxa dhacaysa halkan 270 xildhibaan oo qabiilada ka yimid ama gobolada ka yimid inaysan iman doonin marka waxaad kobcinaysaan wixii anti state ka ahaa state ka wixii ka soo horjeeday dawladnimada did dawlad ayaad kobcinaysaan maalin walba murqiyo waaweyn tababaraysaan waxa baraysaan daal ku rooyahay juuyo iyo daal ku rooyahay maxaa la yiraahdaa geedan Jabaaniisku ciyaarad baraysaan Soomaa huwaynaysaan ilkaha u qoraysaan waxa hoos u dhigaysaan maalinta asaas samaysaanba waxa hoos u dhigaysaan jaaniskii ama fursadii qaran inuu soo baxo aad iyo aad baa mahadsantiin dadka hala taageero mahadsan madana xiga